هاي خبزة عمها موك حرق كتب أفكن مروك أقولي كتب لوك استعمالك إسبتال وين تجانا لك هذه ينبارني ورا بصوب بعد قوينا تدوم على ولا قوينا أو قبرت السكرات أو إتوحي way kufsadeen uurna waa u yeeleen kadibna magaalkii ay joogtay waxay suuqa u galiyeen in ay naagtaasi ka waarantay oo laga cararay haddaba dad inantan oo dhalinyartii iyo gayaankii ay islaagayeen lagu fashilay ama magaalka joogtay kadib markii ay uur iyo kufsi iskugu dareen iyo jirdil aad u culus barihii ugu dambeeyay daawadeen waxa baraha bulshada qabsaday jirdilka iyo kufsiga loo geysanaya hablaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan geyga Soomaaliyeed runtii arrinkani waa arrin aad iyo aad murugadeeda u wata kaasoo hablihii wali iyo warbahaar ku abuuray ragga kufsanaya jirdilkana u geysanaya sidoo kale dhacdo ka dhacday magaalada Boosaaso kadib markii ay ku kufsadeen gaadhina ay madaxa ka mariyeen kuwaas oo ku soo tuuray wastiriijada magaalada ugu waaweyn runtii arrimahaas ayaa ku soo badanaya geeyigeena Soomaaliyeed haddaba saaxiibayaal muuqaal ayaan iga diyaariyay halkan waa kanaalka xubinta ugu horeyn haddaad ku cusubtay saaxiib subscribe ku qabasay ku soo gaadhaan muuqaalada iyo barnaamijyada halkan ku baahino waanad ku mahadsantahay la jaanqaadkaaga saaxiib kadib markii ay kufsi iyo jirdil u geysteen ayay uurna u yeeleen kadib markii ay magaalka u galiyeen gabadhaas ama inantaas way waalan tahay ee ka yaaca dhalinyartahay runtii magaalka iyo dhalinyartii ay la jaad qaadka ahayd ayaa ku leerisay oo tiri gabadhaas way waalantahay laga yaaca runtii halkaas ay mustaqbalkeedii ay dhaawac culus soo gaarsiin runtii geyga Soomaaliyeed waxa ugu soo badanaya barihii ugu dambeeyay saameynta ku leh kufsiga iyo jirdilka la isku daray hablaha Soomaaliyeed taasoo qaar ka mid ah in hablaha Soomaaliyeed inta rag la balaamaan ay qoortaba ka gooyaan sidoo kale waxa xamar ku soo badanaya magaalooyinka xamar Boosaaso sidoo kale waxa ku soo badanaya intay kufsadaan hablaha ama ay madaxa gaari ka marsiin ama ay jirdil culus u soo geeyeen taasoo ay kaba kaxeeyaan adduunka ama mustaqbalkii ay ka lahayd hamigeeda sidoo kale kufsigan iyo jirdilkan lama garanayo cidda ka dambaysa iyo waxyaalaha loo geysanayo gabadhan la kufsaday ee jirdilka loo geystay ayaa waxay ku nooshay Markacday taas oo ku dhaqan guud ahaan Markacday waxay ku taalaa Soomaaliya runtii haddaba waxaan kula wadaagi doonaa saaxiibayaal muuqaal naxdin leh iyo argagax leh kaasoo laga soo duubay inantii loo geystay kufsiga jirdilka ee culus ee ka dhacay Markacday sidoo kale inanta suuqa waxa loo geliyay in inantaas madaxa u dhacday oo waalan tahay taasoo dhalinyarta ama dadka ku dhaqan geygaas ay ka yaaceen